laakiin aad iyo aad uga naxay wallahi saan ku soo baxay xataa ma aqaan. dhacdadan oo ahayd mid aad u xanuun badan ayaa ka dhacday degmada Waaberi ee gobolka Banaadir kadib markii uu isdaldalay sida la sheegay wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeynaya goob ganacsi taas oo ahayd xarqaan amba dawaar meedkiisa ayaana laga dhaxlay goobtiisa ganacsiga ma cadda sababta rasmiga ah ee uu isku daldalay wiilkan dhalinyarada ah sayeshe warar iskhilaafsan oo soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in ay haysteen problem family inkastoo taasi si rasmi ah aan loo xaqiijin karin dadka deegaanka iyo eheladiisa iyo dhalinyaro fara badan oo macaamiil la aheeday ayaa ku soo xoomay halkan oo ah goobtiisa xarqaanka amba dawaarka waxaana goobta laga qaaday meedka marxuumka iyadoona la geeyay laanta dembi baarista ee CID-da si loogu sameeyo baaritaan dheeraad ah haddaba qaar ka mid ah dadka deegaanka oo nala hadlay ayaa waxa ay ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan dhacdadan uu isku daldalay sida la sheegay wiilkan dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdullaahi loo soo sheegay waxaan isla dukaankii uu hal jibiyo waa iska bini aad waxa laga yaabaa inuu mootil fajaa ku dhacay marka dukaankii saa ku jibinay marka arintaana la kulin aad naxdinta u leh wallahi kulli warqad war badan kuma qornayn baa ani laba gabdhood aan dhalaa jirto oo roodi wax saas la yiraahdo hala la socdo bas wallahi waa gan kulli waxaan hadda warka aan ma maqlay arin familia la sheegaya in la qasbay xataa la daldalay oo si pressure la saaray xataa aad uma garan karno oo wax wala sameyn kara moogta laftirkeeda inkastoo dukaanka hoos uga xirnaa in furaha laga koobisto iska suuragala oo iska ay tahay accident inay tahay waa macquul Allahu a'lam laakiin anaga warqadaasna waa arrin waan qoraalka fartiisana waa ahayd aan arrin mucjisa waxa ka rabaani ka timid wax kale oo ka sheegi kara ma laha laakiin ilaahay asaga jannad firdaws Allah ugu bishaaray insha Allah ilaahayna waxa ka tuuganayna tan oo kale xaafadayna ku soo noqon mar kale laakiin waa arrin qiiro leh aad iyo aad uga naxay aad iyo aad uga naxay ma xababa anaga ma hadda maqlaynaabo ma oginbo laakiin aad iyo aad uga naxay wallahi saan ku soo baxay xataa ma aqaan aniga ma arkin waayahan iidii dharka tasha igu dambeysay sidii wixii ka dambeeyay ma arkin laakiin aad iyo ana xaafadda la deganaaba guriga ka soo bixinbo Cabdiraxmaan nin wanaagsan oo zaciima oo boqolaal qof oo haween leh oo caruur leh oo dhalinyaro leh oo odayaal leh oo mas'uuliyiin leh oo culamo leh nin qancinayay oo anigaygan aan marqaati adduun iyo aakhir ilaahay hortiisa ka cadeynaa inuu ixtiraamayay iyo caawinayo qof kasta oo degmadan degan waa caawi jiray waa nin fiican oo dareen aan ku cabiri kara ma laha waxaan leeyahay nin aabba oo caruur leh waaye waxaa la sheegaa problem family inuu yahay aniga mihi investigation laakiin waxaan rajaynaynaa hay'adaha u qaybsan inay baari doonaan waxaa si jiro waxyaabo la dhaxmaray oo ah problem asaga qofka gaar u ahaa inuu ahaayaan aaminsannahay waxaan leeyahay mar labaad Cabdiraxmaan nin wanaagsan oo zaciima oo cid walba qaadala qof kasta oo dadka idinku hareeraysan ama xaafadan degan waa qaadala yahay hadduu mas'uul yahay hadduu yahay nin caadi hadduu culimo yahay hadduu haween yahay qofna ma qaadan karo dhacdadan dhacday waxaan leeyahay mar labaad waxaan rajaynayaa inaysan mar dambe ku dhicin qof sidiisoo kale oo la jecel yahay inaysan waxaan ku dhicin deeq macalin Chino Chekay Sab TV Muqdisho